sida aynu shalay sheegnay waxaynu ka dhignay ajendaha kalfadhiga koowaad ee golaha wakiilada waxayna ka koobnaayeen qodobka koowaad oo ah u yeedhista mas'uuliyiinta xukuumadda qodobka labaad oo ah mashaariicda sharci ee golaha horyaalla xeer hoosaadka golaha wakiilada xeerka shaqaalaha dawladda oo guurtada ka soo noqday xeerka saaminta shidaalka oo guurtada ka soo noqday xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta oo akhriska koowaad oo haddii ilaahay idma guddiga shuruucda la wareegi doonto marka guddiyada aynu magacawno xeerka ka hortagga iyo xakamaynta ka ganacsiga iyo tahriibka dadka oo akhriskiisa koowaad oo goloweynaha u yaalla xeerka macdanta qaranka akhriskiisa koowaad wax ka beddelka xeerka maaraynta maaliyadda dawladda oo wasaaradda maaliyaddu ay halkan ka akhri doonto ka caddayn doonto ka sharxi doonto wax ka beddelka xeerka dakhliga cashuuraha beriga oo isla wasaaradda maaliyaddu ay isagana halkaas ay ka sharxi doonto qabiyo qoraalka xeerka shidaalka shirkadaha caymiska oo akhriska koowaad isaguna geli doona xeerka dakhliga shidaalka oo akhriska koowaad geli doona waxaa raaci doona ansixinta mas'uuliyiinta qaranka xeerka golaha guurtada ka soo noqda iyo wixii kale ee soo kordha mudanayaal annagoo tixgelinayna tala soo jeedinihiinnii shalayto waxaanu kala tashanay la taliyaasha xagga sharciga arrimihii ay soo jeediyeen xildhibaanadu waxaana noo muuqatay kalfadhigan oo ah kalfadhigeennii koowaad in howlaha aynu mudnaanta u kala siino sidii ay u soo kala horreeyeen culayskooda u kala badnaa looguna horraysiiyo xeerarka guurtada ka soo noqday iyo xeerarka muddada badan yaallay golaha hortooda sidaa darteed muddada aynu haysanno iyo waqtiga golaha oo cusub iyo la qabsigiisa muddadan kalfadhigan ugu horeeya waxaanu isla qaadanay intii aynu shalay soo qorray inaan waxba lagu dari karin oo ay ku culus tahay golaha inta aynu maanta soo qorray iyadoo la filayo inay xeerar kalena ka yimaadaan dhinaca xukuumadda haddii ilaahay idmo waa qodobka labaad oo soo jeedintiinni ku jirtay oo ahayd in qodobada halkan ku jira qaarkood laga yaabo inay culays noqdaan in laga wada doodo khasab maaha in kalfadhiga qodobada aynu waa inagu hadda waa odoros aynu soo bandhigayno aynu aaminsannahay inaynu qaban karro waxalla waxa aynu qaban kari weynaa waxay dib ugu dhacayaan oo loo riixayaa kalfadhiga ku xigaa loo riixayaa sidaa darteed waxaynu mudnaanta u kala siin doonaa sidii marba hawluhuna u kala mudan yihiin una soo kala horreeyeen baynu u siin doonaa wixii ku fuli waaya wakhtigaa aynu ugu talagalayna oo aynu rajaynayno muddadii 70 cisho ahayd ee maalintii goluhu ugu horreysay fadhiistay ee kalfadhiga kan wax alla wixii ku fuli waaya waxay u gudbi doonaan kalfadhiga ka dambeeya haddii la raalli ka noqdo iyadana sidaas aynu u dayn doonaa wax culaysa oo ay keeni doonaan xeerarka halkan ku jira haddii ay fuli waayaan ma jiri doonto haddii la yidhaahdo waxaan marka mudanayaasha ka codsanayaa afwan sixid xildhibaanada fadhiya golaha ee uu koorku ku furmay waa 8 xildhibaan waxa shaqo ku maqan oo aynu shaqo u diray 3 xildhibaan oo uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad golaha iyo oo tegay qolada mishinka ama wakiilka Taiwan u fadhiya dalka oo xaflad ay leeyihiin lagu soo casuumay iyo qolada jaamacadda Golis qaybta arrimaha bulshada oo iyaguna 2 xildhibaan ay tageen 5 xildhibaan waxay ku maqan yihiin shaqo la og yahay sidaa darteed 73 xildhibaan baa golaha yimid koorumkuna sidaas uu ku ansaxay waxayna ahayd inaan horeysiyo raalli ahaada marka waxaan xildhibaanada ka codsanayaa insha Allah taala inaynu ajendaha ansixino marka koowaad markaynu ajendaha ansixino waxaan u yeeri doonaa gudoomiyihii guddigii dib u eegista xeer hoosaadka xildhibaan mudane Cabdullaahi Muuse oo sharxi doona inoo soo koobi doona xeer hoosaadkii iyo wax ka beddelkii ay ku sameeyeen haddii uu markaa u baahdo cid kabta oo tiimkiisii ka midana
isagu insha Allah taala uu cayimi doono marka waxaan codsanayaa xildhibaanada inaynu cod gelino maxaa ajandaha golaha hor yaalla kal fadhigan in loo codeeyo hadii lahay idmo haw diyaar garowdo xoghayntu cida ogol inaynu ajandaha golaha ku ansixino kal fadhiga koowaad gacanta taagan inta ay tirinayaan nabad kor loo iyo gacanta waxay u codeeyeen 60 xildhibaan in la ansixiyo heer ajandaha koowaad ee golaha wakiilada 6 xubnood waa diideen xubin way ka aamustay gudoomiyuhuna ma codeynin sidaas uu ku ansaxay ajandihii goluhu waxaynu u gudbaynaa insha Allah taala qodobka xiga oo ah in anoo mahad ballaaran mahad Ilaahay kadib u jeedinaya xubnihii 15 ka ahaa labadii la taliya sharci iyo ku-xigeenka xogayaha guud shaqadii weynayd ay muddadii 10 cisho ahayd aynu soo dhaafnay hayeen anoo aad uga mahadnaqaya waxaan u yeedhayaa mudane xildhibaan Cabdulaahi Muuse oo golaha u sharxi doona hadii lahay idmo shaqadii ay soo qabteen runtii waxaan sidaa uu gudoomiyuhu sheegay waxaan guddiga loo xil saaray balin xeeroosaadka ay soo eegaan waqtigii naloo soo saaray halka guddiga naloo saaray waxay waqti dagaalkii markaa u dhamaaday oo wali xanaftii dagaalku jirto in wali laba gruubnahay oo qoladii laga badiyay aanu cadhaysanahay qoladii badisana aanay wali hubkii dhiganay wali dagaalkii ku jirto inta waxaan noo raaciyay guruujaanu goostambeedka ku haynay oo isna guddiga ku jiray marka runtii maalintii ugu horeysay xaaladaydu way iska yar adkayd hase yeeshee waxaan idinku bishaaraynayaa oo aad iyo aad noogu faraxsanahay inaanu maanta nahay one team hal team oo kale aanu nahay aanu si wanaagsan wada shaqaynay wixii aanu ka xeer hoosaadku arrinka ku koobnaa aragtidayada aragtida xeer hoosaadka inaan qaybsanin aanu noqonay one group hal team noqonay hal isbahaysi noqonay mudanayaasha inta kalena waxaan jeclahay inay sidaas oo kale aynu u midoobno waynu hal team noqono aynu hal golo noqono way muhiimad aad u ballaaran ay leedahay isku xidhnaanshiga iyo haddii ay laba korreey wada shaqaynteenu tafaraaruqeena iyo isqabsigeennuna wuxuu saameyn weyn ku yeelanayaa qaranka dhammaantii ummaddiina soo dooratay iyo qaranka guud ahaanba uu ku yeelanayaa marka sidaa awgeed waxaan odhan lahaa soo jeedin lahaa codsan lahaa in aynu maaragtay dhammaanteen aynu one team noqono aynu isku xidhnaano runtii kan aynu maanta joogno saddex wuxuun baa la isku haystaa waxa la isku haystaa hubkan anigu samaystay ma samaysan kartid waxa la isku haystaa hubkan anigu samaystay adigu ma samaysan kartid horumarkan anigu gaadhay ma gaadhi kartid waxaan doonayaa inaan kolba wax yar aan ku baqti afuufo aan wax yaraan kolba aan wax yar ku dhiibo iyo dhulkan aad degan tahay aad leedahay anaa leh anigu igu wacan yahay aan anigu qaato caalamku waxa la isku hayaa dagaal ka socda waa taa inaguna waxaynu isku haynaa si waxaan qiyaasaawaan israadaa malaa waxaynu nahay sidii deerooyin geesaha isgelinayo ay deerada kala doonayso inay geeska geliso libaaxyana ay hareeraha ka fadhiyaan oo ka hadlayaan siday u cuni lahayn waxaan odhan lahaa tacaalamka ka socota iyo mandaqada ka socotaaba runtii waxay u baahan tahay aragti fog oo dheer gaariya wuxuu yidhi waxaa eego waxa ka sokeeyana eeg wax kastaynu eegno waxbaa ka sokeeya inkastaan anigu gabayada ku wanaagsanayn laakiin kelmadaha qaar baa aad iyo aad ii gala oo runtii markaan arko mujtamaceennan aad iyo aad ay u dul taallaa wuxuu yidhi abley baan ramiyaa afeeyaashii rabaa adhaxdaan isjaraa ogso baan isdhaa afweyntaan u dhacaa haddii aynu inagu
inagoo le waxbaynu qabsanaynaa inagu aynu adhaxdaystarayno dee meel la gaadhi mayno meel loo socon mayno marka maantana 82 ayaa ummadda xilkeedii oo dhami ina saaran yahay oo laynagu aaminay way naga baxaysaa xisbinimo way naga baxaysaa reernimo waa inaynu guud ee qaranka eegnaa waa inaanaynu dhangagaala noqon lagu soo shubto wax laakiin ka dhangagaala waa inaynu caqli celinaa ninka muraad leh halkan imanaya ee doonaysa muraadkiisa inuu soo dhex gashado waa inaynu nagu aynu ogaanaa aynu aragnaa marka walaalayaal intaas waa iga guubaabo iyo odaytinimo ajandaa kuma jirin laakiin aan intaa yar ku darsaday haddii aan u soo noqdo runtii hawlihii aanu ku jirnay waxaanu runtii annagoo ka duulaynaa mas-uuliyadda aanu xil saarteen ee la xidhiidha gorfaynta xeerhoosaadka golaha wakiilada xeerhoosaadkooda annagoo maanka ku hayna ahmiyadda ballaadhan ee uu xambaarsan yahay xeerhoosaadka goluhu annagoo garwaaqsan inay muhiim tahay in wax ka beddelka kaabista lagu samaynayo nuxurka xeerhoosaadku muhiim inoo yahay annagoo gudanayna xilkii iyo waajibaadkii uu tilmaamayay xeerhoosaadku golaha iyo mabaadi'da kale goluhu ku shaqaynayo annagoo xaqiiqsanayna marxaladda kala guurka ah ee goluhu galay isla markaana ay waajib tahay in golaha cusub dejiyo xeerhoosaad loo raaco hannaanka xilgudashada iyo howlaha maamulka golaha isla markaana la faahfaahiyo habka xeerka dejinta annagoo buuxinayna marnaanshihii sharci ee soo baxay xilligii doorashada shirguddoonka golaha wakiilada waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa soo jeedin xeerka hoosaadka golaha wakiilada annagoo hamiyad gaarana siinayna annagoo ka duulaynaa goldololadii sharci ee legal gap ee ka soo baxday kalfadhigeennii ugu horreeyey ee aynu ku dooranaynay shirguddoonka waxaanu faahfaahinay habraac doorashana u samaynay guddoomiyaasha annagoo ka tix raacayna habraacii hore ee xeer dejinta waxaanu faahfaahinay habraaca xeer dejinta gaar ahaan ansixinta xeerka madaxweynaha iyo guurta ka soo noqda waxaanu dejinnay in mashruuca sharci ka yimaada xukuumadda ay ku lifaaqan tahay siyaasaddii dhalisay iyo baahidii keentay isla markaana habdhigaalkiisa la faahfaahiyo annagoo maanka ku hayna baahida loo qabo isla markaana waajib dastuuriya gudanayna waxaanu qaabaynay qabdhismeedka gudiyada iyo waajibaadkooda waxaanu hamiyad gaar ah siinay doorka golaha ee la xisaabtanka xukuumadda sidaa awgeed waxaanu habraac u dejinnay qaabka ay madaxda dawladdu u ajiibayaan yeedhmada gudiyada iyo goloweynaha waxaanu ka saaray nuxurka qodobada aan ku habboonayn in xeerka lagu tilmaamo isla markaana dastuurku aanu waajibin gabagabadii waxaanu halkan ugu mahadnaqayaa xubnihii guddida oo muujiyey dadaal xilkasnimo isla markaana soo qabtay shaqo aad iyo aad u wacan ku dhisan shirguddoonka iyo habkii u soconayay runtii waa mahadnaqu intaa dambe oon u mahadnaqayo guddidii 15 ahayd oo runtii ay ku jireen rag iga aqoon badan iga waay aragsan haddana ii igmaday inuu guddoomiye u noqdo intii ay socotay hawshu aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka soo shaqeynay mudaba xerosaadkii golaha xerosaadkan goluhu ma aha wax imika bilaamaya waa wax golayaashii hore ee qarankani ka soo dejiyeen oo ay ku soo shaqeynayeen xeerkii ugu horeeyay wuxuu ahaa xeerkii 1998 xeerkan aragnay xeerkii labaadna xeerkii 2006 waxaa kaloo ku dul shaqeynayay imika muddadaan shaqeynayay xeerkii 2014 xerosaadku waa xawaajibiyay dastuurka qaranka in goluhu uu fadhigiisa ugu horeeya ku ansixiyo xerosaadkiisa contentiska xerosaadkana wuxuu ka kooban yahay qodobo uu dastuurku dhigay oo aanu sii faahfaahinay iyo qodobo kale oo aanu ka hadal oo aan anagu ku soo darno si waadixinay inta badanna waa xerosaadkii jiray baa wixii aan ku daraynay iyo wixii aan ka saaraynay iyo meelihii qabyooyinka aanu aragnay inay ku jirtay baanu
ka soo shaqaynay oo ay ka mid ahayd wixii aad arkayseen maalintii ugu horeysay kalfadhigeenii ugu horeeyey ee halkan aanu garan weynay qodobadii dee looga gudbi lahaa arrintii gudiyada qaab dhismeedkii golaha xeerka ugu horeeya qodobada ugu horeeya waa kalfadhiga golaha iyo furitaankiisii kalfadhiga ugu horeeya kala inta dambe aanu galayna waa qaab dhismeedkii golaha oo ah shirgudoonkii iyo shaqaale xogayihii iyo shaqaalihii kale qodobada ku sii xigaana wuxuu ka hadlayaa nidaamka sharci dejineed sharci dejinta iyo shaqada golahu habraac ay marto waxa ugu dambeeya oo ka hadalnayna waa gudiyada iyo waajibaadkooda iyo tirada gudiyada iyo habka gudiyada loo magacaabayo wax badan oo kale kama hadal waxaan ku soo koobi lahaa kulida xerosaadku wixii technical kolba qabiye naga soo baxa waa wax la soo jeedin doono shaqadiina baan soo wada qabane xildhibaanadu wixii contribution ay arkaan inaan ka tagnay qabiya way ku kordhin karaan aad iyo aad baad mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii wuxuu ilaahay nagu guuleeyay dad qalbi xaaran oo danta qaranka eegaya odaytinimo muujiyey runtii isku duubnaan muujiyey inay fahmeen micnaha mas-uuliyadda loo saaray intii hawsha aanu wadnay muddadaa kooban wax khilaafoo dhexdeeda ka dhacay ama qadaf qofeed oon iskula kacnay may jirin waxaan jeclahay inaan iyagana bartan uga mahadnaqo ku-xigeenka xogayaha guud oo waayo aragnimo fara badan iyo khibrad nala wadaagayay oo nagu kaabayay laba sharci yaqaan oo aad u qiimo badan oo goluhu soo xulay cabdiraxmaan hirad baan si gaara isna usii xusayaa intaa kadib oo difaac ka geli mayno waanu soo dejinnay oo xeerka gudihiisayba ku qoran tahay waxyaabahaan isleeyahay si wanaagsan baydun u dhigteen waxaa ka mid ah awoodaha golaha umaanu eegin xukuumadda hadda joogta iyo tuu iman doonta laakiin muujinta haybadda golaha iyo awooddu dastuurku siiyey inaan la jafin wax lagu dara mooyaane iyada meel baanu saarnay qodobada kale ee ku jira waxaa ka mid ah doorashadii maalintii dhawatoole shirgudoonka farsamo ahaan iyo sharci ahaan khaladadii ku jiray in iyadana dib aanu u eegnay oo aanu si fiican qodobkaana u faahfaahinay waxaa iyaduna ka mid ah xasaanadda xildhibaanada ay huwan yihiin ilaalinteeda dastuurku u damaanad qaaday in iyadana sideedii aanu ku daynay maadaama oo qodob dastuuriya uu yahay si ay u muuqatuun haybadda xildhibaanku inaanu iyadana wax kusii kordhinay waxaan isleeyahay si kooban xeroosaadkan wuxuu noqon doonaa xeroosaad mushkiladda 5 sano kadib ka abuurmi lahayd golaha habdoorashadiisa dambe iyo habmaamulkiisaba wax badan ka badbaadin doona oo khilaaf saari doona oo hanaan sharci oo qiimo badan horseedi doona marka si dhiibliya u geli mayno oo idin akhrin mayno laakiin dawaaba la hayleed gariyay qodobada kabistii wax ka bedelka aanu ku sameynay ansixinta iyo ogolaanshahuna oo wax sharcigu idinkeedii siinayo marka waxaan baan isleeyahay waxaan ku ururinay intii ugu habboonayd waananu mahadnaqayaa qolada shirgudoonku intii hawshaan wadnay wax faragelinana nagumay samaynin nooma iman guddi madax bannaanideeda ay dhowreen baanu ahayn interes iyagu ay leeyihiin saddexda oday ee shirgudoonkii ifan xitaa telefon nagalamay hadal iyaguna aad bay ugu mahadsan yihiin si ay u dhowreen madax bannaanidii guddida mar labaad iyo mar saddexaadba ma wada magac dhabi karayo odayaashii shaqadaan isku barannay golahana waxaan ka rajaynayaa wanaaggaana dhex maray 15-yaga iyo horumarka golahaan u horseednay inay naga daba qaadan doonaan oo horumar waara qaranka aanu gaarsiin doono aad iyo aad baad guddoomiye u mahadsantihiin adiyo golubo assalaamu calaykum intii aan odhan lahaa runtii iyo nuxurkii hadalka waxaa soo jeediyey walaaladii iga horreeyey oo ugu horreeya guddoomiyihii annaka odayga noo ahaa nuxurku waa intaa la sheegay waxaan raacinayaa sidaa la wada sheegay waxaa naloo diray wuxuu ahaa dib u eegis xeer hoosaadkan ku shaqaynayno dib u eegistii markaa dhowr meelood
sida la sheegay ayaanu ku soo koobnay maxaa u baahan amendment in lagu sameeyo ama wax ka bedel sida ula jaanqaadi kara xeerkan haddaynu nahay xildhibaano cusub markii hore ku shaqaynaa ma kan baynu dib u hufnaa hawlaha intaas ay guud ahaan ku koobnaayeen waxaanu markii hore ka bilownay oo aanu isku soo ururinay terminology-ga ama erebixinta ku dhex jirta xeroosaadka oo runtii marka Soomaali ahaan loo eego iyo English ahaan aanu isku danay inaanu in badan iswaafajino alxamdulillah rabbil caalamiin wixii taladayada halkaasaan taa kaga gudubno ku soo qoray gudiyada qaarkood sidii walaalada ay sheegeen oo markii hore 12 ama 10 suun u dhigmayay qaarkood baan kala saaray midaleen gudiga arrimaha bulshada markii hore ahaa waxaan u kala saaray laba gudi annagoo eegana shaqada iyo baaxadda iyo wax loo baahan yahay effective noqoto oo mira dhal ay noqoto muhiimadeeda dhinacyada aanu ka eegnay taasna labaan u kala qaadnay qodobka kale ee runtii aanu inta badan eegnay waxay ahayd annagoo la tashanay garyaqaanada qodobka xilka qaadista shirgudoonka oo xeerku uu marna dhigayay labada shirgudoon ku xigeen uu dhigayay absolute majority xilka laga qaado gudoomiyaha golaha wakiiladana uu dhigayay 2/3 markay 3 meelood meel ahaan ay golaha soo jeedeen laga qaado qodobka runtii in badan baanu ka naqaashnay haddaanu ka naqaashnay waxaan isku guurinay inay meel wada tagaan oo shirgudoonka oo dhan laga dhigo 2/3 waa fikirkii annagu aan isla qaadanay majority-guna uu batay laakiin golaha ayaa u taala doodistiisa iyo hawlihiisa siduu gunaanka ugu dambeeya wuxuu isla qaadanayo waxa kaloo isaguna fani ahaan ka hadalay sida shirgudoonku wada fadhiisanayo meenin kala hoosaysiinaa ma meel baynu wada geynaa horaynu haraasment iyo xasarada hore uga soo maray haddii muran dhaco arrin la isku qabsado talow sida uga hortagi karaa feedhar iyo waxyaalihii hore u dhacay inaanay mar kale dib u dhicin xataa waxaan isnay shirgudoonka fikradu markay soconayeen aanu cabdirasaaq iyo labada shirgudoon kala fogeyno markii dambe waxa soo baxday war haddii la kala fogey feedhkii baaba qurux badnaanayo arrintu mala sideen inay isu dhawaadaan gacanta isla gaadhin bay ku fiican tahay taana waxaanu ku soo gabagabaynay halkaa inay odayaashu wada fadhiyaan oo odayguna dee uu shirgudoonkiisa lahaado iyaguna wixii doorku uu siiyey rool ay ku leeyihiin xeer hoosaadka ay qaataan laakiin halkooda aynu ku muuqayno ay fadhiistaan taana taasaanu ku soo gabagabaynay all in all waxay ahayd fikirkaygu intaasuu noqday wixii aanu ka gaabinay dee waad micnaha idinkaana saxi doona aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa noo sharafa in qodobadan xeer hoosaadku aanay ku iman cod iyo isku muquunin cod dabcan qodob walbaaba kama turjumayo xubin kasta iyo waxay qabtay laakiin waa wixii aan ka geyn weynay goluhu waa gole dhaxlay dee golayaal badan taariikhdood waana gole qaran oo golayaal kale oo lagu barbar dhigo si siyaasiya ay jirto curfi siyaasadeed baa isagna inagu gadaaman annagoo waxaasoo dhan horta tixgelinaynaa duruufahaasoo dhan ayaa qodobada halkan aanu ku soo qornay iyo dee taariikhiyanba wixii marka hore inoo qornaa ayay ku yimaadeen waxaanu si hoose iyo si saraba isku tusaalaynay saameynaha ay leeyihiin go'aamadani alxamdulillaah waxaanu ku heshiinay waa natiijadaa idin hor taalla weyn waana natiijo dabcan dee aanaan lahayn waa ceebka saliime idinkuna kolley aanu rajaynayno wixii kale ee godoloola ay yeelato inaad idinkuna aad ku dartaan waxaan jecelahay inaan loo nisbayn aragti ku jirta halkan xildhibaan naga midaba aan loo nisbayn waa aragti guddi weey waa guddidu waxay wadar ku soo saartay sidaa darteed anigoo sharaf badan u haya oo rag badan oo qiimo leh runtii ku bartay aan isku dhex gallay markii dambe aragtiyuhu ay noqdeen qaar isweydaaranaya oo aan ahayn labadii liin ee lagu kala yimid aragti la mid ah aan ahayn aragti isku dhafan ah ayaa qiimo lahayd
in badanna waxaad moodaa xamaasadna way nagu wada jirtaayo dad u wada heelan baa isugu yimid mudana guddoomiye inay wax qabtaan mararka qaarna waxaa laga yaabaa sharciyada dalku awoodahay xadiday inay su'aal ka keenaan sidaa darteed ha loo arko uuna ha loo nisbeeyo kalgacalka iyo hamuunta loo qabo waxqabad aad baad u mahadsantihiin dhammaan wassalaamu calaykum waxaan samaynaynaa waynu soo akhriyaynaa maanta dhammaan inta xildhibaanadu kala duwan way soo akhriyi doonaan markaad maanta soo akhrisataan aad ka soo dheregtaan ee aad ka soo bogataan waxaan xusuusinayaa boqolkiiba 15 ku dhow xildhibaanadeena baynu u saaray oo aynu ra'yi aragti bidayno inay hawsha wax ku soo kordhiyaan way soo niqaasheen way soo lafagureen halkaas ay soo gaarsiiyeen waxaan jeclahay laba qodob baynu ku koobi doonaa berritooda haddii ilaahay raalli ka noqdo oo ah marka koowaad inaynu laba shay kala dooranno markaad soo akhridaan inaynu ku ixtiraamayna saaxiibadeena aragtidooda aynu sida uu yahay ku ansixino iyo inay qodobadii ay wax ka bedeleen aynu qodob intaynu isu dul taagno aynu qodob u ansixino wixii contribution ee dheeraad ah ee markaa loo arkay inay gabeenna xildhibaankii markaa hayaa uu soo qoro hadalkuna inoo urursanaado aad inoogu urursanaado waayo waxaynu waqtiga intaa le ugu luminay inay inoo soo ururiyaan saaxiibadeen hawsha iyaga iyagana ayay dhaliil ku noqonin innagana ayaa waqti dambe inaga lumin waxaanu jecelahay week usbuuca kan inaynu hawshii gudiyadana inta ka hadhay maalmood iska dhamayno sabtida laga bilaabana golahu uu shaqo galo ajendaha aynu qaybsanay aynu ku shaqo galno si aan marka waqti looga lumin haddii ilaahay idmo golahu isagoo aad iyo aad u mahadsan ha soo wada akhriyo raggu ha soo geliyeen waqti wixii contributions ay ku soo darayaan ha soo qorteen haddii ilaahay idmo berritona aynu isugu soo noqonno golihii waqti hore haddii markaa haddii doodi ka dhalato qodobada qaarkood inagoo sidaa aan idiin sheegay u kala horraysiin doona oo dooraysiin doona xildhibaanada in aragtidii xubnaha guddiga la qaato in qodobadii ay wax ka bedeleen la dul istaago ansixintooda iyo inaynu dood gelino saddexdaba aynu kala dooran doono haddii ilaahay idmo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan jeclahay xildhibaanaha codsaday runtii waa ixtiraamaya inkastoo aan jeclahay hawshan hadda doodeeda halkan lagu geli maayo dood waxay u baahan tahay in la soo akhriyo xeerarka wixii kale ee ka baxsan business ka baxsan insha Allah baan jeclahay in asiyo Xuseen waxa ka muuqda version kan dambe hadda noo qaybiyay waxaan anigu filayay in ama la soo raaciyo qodobo ay gudidii hawsha qabatay ay gaar u soo qoreen bilmatal cutubka koowaad article inta xarafkiisa inta waxa lagu daray waxa laga bedelay oo lifaaqa in ay soo raaciyaan mudanayaashu haday sameeyeenna in ay xoghayntii soo diyaarisay in ay gaar u diyaariyaan data suurtagal weeday waxa haboonayd inay ugu yaraan la boolgareeyo la highlight gareeyo chapterka ama waxyaabihii wax laga bedelay فرشك دم هاي قولها لون قبيعي تصوح قدوم سهل لهيد إن وقت فربدين اللي جالين إن هاي article by article أما chapter by chapter أدو سهلنا لهيد وعكلون نو سهلنا لهيد دبيجيست مركان صبينا ونصو أخيرنا نقلبت يضو ملها عنو تارك ذكرنا إن هاي وهي سوق بتين اللي بنرد مو يعني إنه ملها كلام هاي وحي القدر خير القدر مركان واحد عطسنا يا حوي أنيقو احترامي يقولها haddii uu jiro original document kii ama waxyaabihii ay mudanayaashu contribute gareeyeen in dib loo highlight gareeyo bacdama ay si ay hawshu ugu fudaato maasantiin wixii ay ka bedeleen ama ku kordhiyeen way ka muuqanaysaa inkastoo khadka la isticmaalayo aanay color lahayn iyagoo gaar ah oo la highlight gareeyo bold ah bay ku jiraan qoraalkan aad haysataan waa ku jiraan waayo waan akhriyay anigu soo akhriyay oo saaka waan akhriyay marka haddaan markii dambe la daabacayay aan isbedelin way ka muuqatay marka waxaan rajaynayaa waan la samayn karaa qodobada wax laga bedelay oo kooban waa la soo daabici karaa qodobada wax laga bedelay
qodobadii wax laga bedelay oo kooban oo qodob ah oo la soo daabici karaa wayna ku guda jiraan oo way ka muuqdaan hawshan way ka muuqdaan xeerka way ka muuqdaan laakiin si ay uba fududaato inta qodobe wax laga bedelay qodob walba insha Allah waxaan farayaa xogeyntu inay intay soo daabacdo ay to qodobka waxa lagu kordhiyay waxaas qodobkaana waxa laga bedelay waxaas gudiyada sida qaabka noocaas baa laga dhigay gudiyada kuwan waxa lagu kordhiyay marka insha Allah taa waynu sameeynaa soo jeedinta Xuseen hadii la hayidmo waxa soo jeedinaya anigoo ixtiraamaya abu qoraalka iyo soo jeedinta mudanayaashii loo saaray xeroosaadka inaan la dadajinin ansixintiisa waqtina la siiyo soo akhrintiisa oo haddii rabiid maayo maalin ka badan uu mudan yahay in la soo akhriyo xeroosaadkan guud ahaanba waayo wahagaha guud ee innaga iyo wada shaqaynta dhexdeen iyo golaha weeya iyo golayaasha kale wada shaqaynta nololeedahay marka anigoo idin ixtiraamaya mudanayaal waxa soo jeedinaya in maalin ka badan la siiyo akhrintiisa iyo ansixintiisa aad iyo aad baad u mahadsantihiin tan masiix uu jinaya xeroosaadku waa xudunteeni koobaad ee shaqadeena waa xuduntiisu kan xidhisay in kala hagaysana innaga iyo golayaasha kale dawladda saadaraad waxaan soo jeedinaa taageersaneen soo akhrintiisa iyo ansixintiisaba waqti la siiyo iyagoo walaaladay 10 maalmood soo haystay haddana waa in xildhibaanadu ay ka doodaan waqtina ansixintiisa la siiyaa oon maalin kaliya ata lagu yaacin si aanu bari ka maalin caqabad noogu noqon mudane gudoomiye waxaan ku raacsanahay in waqti la siiyo soo akhrinta xeer hoosaadka oo aan maalin iyo laba ahayn waliba in ka badan baan ugu oran lahaa waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo gudidii 15 ka ahayd ee hawsha inoo soo qabatay oo si hufan oo xilkasnimo iyo bisayl ka muuqdo u soo shaqeeyay runtii waa bilow wacan in goluhu isla jaan qaaday isagoo magaranaysa hadii kala duwanaansho jiray ay haddana si professional u soo shaqeeyeen waxaan qabaa shaqo wacan bay qabteen qodobun baan magaranaysa aan taageerayo in wixii ay soo bedeleen la highlight gareeyo oo ay calaamadsanadaan laakiin ra'yiyan ma qabo in waqti badan oo dambe la geliyo waayo 15 xildhibaan way inagu filan yihiin shaqadii ay qabteen 10 maalmoodna way hayeen marka anigoo ixtiraamaya xildhibaanada kale ra'yigooda haddana waxaan isleeyahay in aynu hawsha dardar gelino waana jecelahay inaan ku darsado fikirkayga oo aan la qabo xildhibaanadii iga horeeyay oo in time la siiyo oo waqti la geliyo oo dib loo eego oo waxa weeye 15 keenaas inagoo ku kalsoon ay mataqaanaa yihiin rag odayaal ah oo arrinka ka soo bixi karaya kana soo oo ku wada qanacno oo dib u eegis ku samayno oo waqti gelina waa muhiim marka waxaan la qabaa inta la cayimay ee la isla afgarto in waqti la geliyo baan la qabaa xildhibaanadii iga horeeyay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حلو عبد الغني بسم الله الرحمن الرحيم hawshan waa hawl culus oo waxaan ku taageersanahay in akhriska muddo la siiyo waxa weeye qolo waxay leeyihiin muddo la siiyo qolona waxay leeyihiin sidaa lagu wado anu waxaan oran lahaa meel dhaxal la isugu yimaado maadaama ay maanta ay arbaca tahay ay salaaso tahay saddexda maalmood week ka haray إن شاء الله وينقول فلان تهايو سبتدا إن لقد يقول أو صدق 11 ما دام هايلايت كنا اللي جالسين واي إن قضب لبض بكون تقول سكدكو حلي معنا ضاي صو إيجان سبتدا أنا يضع أني والبفه سيهايون اللي يقول راجين هوشيس أنا هقول دمبمر دمبين نوجا قاعدين سيروا فضود أنقصها أفجرنا دبيتنا أنقولها أنقصها كوا عسحنا حراسات كين أنا جمالها وساعة سيلتها ورمها النقيارنتي جدي دي حركس كهايد aynu xil saarnay inay noo soo eegaan xeerhoosaadka iyagoo midaysan noo soo noqday arrintaasi golaha ay farax gelinaysaa si gaar ah ugu mahadnaqayaa gudida xildhibaanadu kulli aragtiyo kala duwan bay halkan ka hadleen oo ku saabsan xeerhoosaadka anigu waxaan aaminsanahay hore waa laynoogu qaybiyey xeerhoosaadkii hore kii wax lagu soo daray waa laynoo keenay
rag badan oo akhriyey waa laga yaabaa in waxa ku jira iyo waxa lagu soo kordhiyay ay garan karaan marka waa muhiim in la akhriyo laga doodo bixiyo tafatiran aynu ansixino mudane gudoomiye xeeroosaadku waa xeer runtii muhiim inoo ah oo hawlaha golaha iyo muddada aynu wada joogno hawl maalmeedkeena iyo xeerkeenu ku dhaqmi lahayn gol ahaan runtii xambaarsan marka wuxuu u baahan yahay inaynu ka baaraandegno waqti gelino wax kastoo runtii waqti aad gelisaana midhaheeda oo la goosan doonaa marka hawshaasi waa hawl muhiim u ah golaha waxaana jecelahay in 3 maalmood ka hadhay toddobaadka ayaan soo jeedin lahaa maalinta sabtida la isugu yimaado runtii iyagoo mudanayaashu soo la fuqray qof walba aragtidiisa iyo waxay la tahay inuu runtii ku soo kordhiyo contributionkiisa waxay naga caawinaysaa inuu noqdo xeer dhinac kasta laga eegay oo mudanayaashu talabixintooda iyo soo jeedimahoodu ay runtii qayb ka yihiin iyadoo 15 mudane ay noo soo diyaareen guddidaasi waxa kaloo jecelahay wixii kale hawlaa insha Allah marka xeeroosaadkan iska dhamayno ayaynu gudageli doonaa gudoomiye golaha waa golo cusub energy badan baa ku jira ragga runtii araa iyo fikir badan baa ka dhex guuxaya marka hawlaha aynu insha Allah qortaysan waxaan rajaynaynaa inaynu waqti badan gelin doono golaha iyo ragga intay energy iyo tamarta hayaan in laga faa'iideyn doono ajendaa runtii maanta aynu ansixinayna qodobo badan iyo sharciyo badan oo dalka iyo dadka waa muhiim u ah ayaa ku jira marka waxaynu u baahanahay inaynu runtii waqtigeena inta aynoo qorshaysan iyo in ka badan baynu shaqayno si ummadeena iyo dalkeena iyo qarankeenaba ay u anfacdo marka inagoo marka si tala wadaag iyo wada socod iyo runtii isku ixtiraamana aragtida iyo aaraada lagu kala duwan yahay hawlihii iyo wixii aynu soo galnay barnaamijkeenu soo galnay naga dhamaaday waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga ragu ka dhaxeeyo geel hadduu kala geeyo daba allow garasiinimo hawshaas way naga dhamaatay sida guddidu maanta hawsha inagu soo gabagabaysayna golaha runtii inagoo fikirka iyo aaraada isku ixtiraamana maan rag iyo runtii aaraada raguna ay kala duwan tahay maan rag waa magacaafkood baa la yidhi laakiin haddana markasta danta guud ee qaranka aynu ka wada shaqayn doonaa kelmadda aaraada iyo kelmadda gubawada un baan u kacay aad iyo aad baan u mahadsantahay waqtiga qaaliga siisay gudoomiye inagoo taymkee waqtiga ka faa'iideynayna halkan waan eegay xeerko waa 62 page subaxii 8 aynu dhimaadnaayo ilaa iyo duhurka 4 saacadood baynu joognaa kulli xagga waqtiga waxaan qabaa in waqti badan 4 saacadood oo kale xaq laynoogu leeyahay aanay mudanayaashu shaqayn marka waxaan leeyahay 62 page 20 page ilaa caawiya gelinka dambe aan soo akhrino oo isla qaadanay iminka 20 ka biriha laga doodo 20 aan u qaad si aan waqtina inooga lubin waa 62 page waliba marka page-ka ku sareeya laga tago waa 60 page 20 page gelinka ilaa caawiya gelinka dambe la soo akhriyo 20 ka page biritaan ka doodno gelinka hore 20 ka xigana khamiista aynu sida u kala qaadqaadna si aan waqtina inooga lubin oo gelin waa lagu soo akhri karaa xildhibaan waliba wuxuu ku soo kaatay mudane gudoomiye ilaa ya maalinkii golahan furmay waxaan moodaa in cagajiid ku imanayno halkan mas'uuliyad baynu in saaran xilbana saaran ummadda xilban u qaadno subax walba golaheenu wuxuu ku furmayaa xubnaan 6 gaadhin 8 subaxina waan balanaa 9 kana u furanaa 10 kana kala yaacnaa waxaan soo jeedin lahaa horta ma walba tihiin xubnaha ka maqan amba xubnaha de golaha xidhmayaba imanaya horta inaad aad qorshe ka yeelataan mid kale xubnahan de 28 ka ah magaalada qaarkood joogaan waxa la xukuum baqiyeen la gareenayna deena si gooneed u wargelisaan barda la xisaabtaan haddii kale wuxuu noqonayaa haddii aysan ku sii soconno inuu maalinta dababa koorabka noo buuxsami waayo oo ana lafjab iyo dabarjab labaad iyo cawaaqib xubnaanu horseedi doono ummadii xilka noo dhibitay taana idinka maamul oo haddana waa dib u saxda la xisaabtantaa cida de aan imanahayn golihii talabaad waan ogsoonayn wixii aan ka dhacay
maalintii shirgudoonka la dooranay taasina waxay ku timid muxuu ahaa xeerka imika xeeroosaadka golaha ee maanta ina hor yaalla oo aan waadix ahayn oo qodobo badan iska hor imanayeen taladeena oo dhan haddayna ka dhigano wax maalin kale ku dhamaanaysa sidii maanta ajendaa ku dhacdo kale dee daldaloolooyin baa imanaya waxay u baahan tahay arrimahan waa masiiri 5 sano ayaa lagu dhaqmi doonaa marka aniga waxay la tahay sidaa la soo jeediyey waa bariisaa dambena la soo akhriyo haddii la yiraahdo sabtida dayna iskula iman oo qof walba isagu wuxuu ka bedelay uu keenay golaha keeno waxa kale oo soo ururinaya golaha wax badan baa laga rabaa ee ragga halkan fadhiya iyo kuwa maqanba waajibka qaran saaran waa ay mas'uuliyadda saaran kartaan oo xilkooda gutaan oo waqtiga dhowraan oo aaraada dadka ka xildhibaanada guuxaysa la ururiyaa la soo bandhigaa oo xeer laga dhigaa waxa ugu weyn ee laga sugayo waa in wax urino oo wax la imanno xeer la imanno baahiyaha kale bulshada laga turjumo waxa soo dhamaan sugaysa ma walba inta saacad badan kala yaacna maaha waa in waqti la qaataa oo wixii yaala kolba waqti laga baarandaga oo la shaqeeyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي دليل ومقارنة عدقار رأيك حلواننا إنما دليل كرو كيسنا صح كما دي كرو وهالك كان عينا عد قولوا أها عد كقفك كيسنا ما فضل لك هو كلنا ما دليل ونقصان آدوين أرنتاسي لحد الحلوان بسكر راعي حق بعضولا هنا دركت هذا مجسود ديوه هي هنا دقبشو لكن الحق له ما تشيره توقع صوفر يستو إنه قولها دليله وكل دليله laakiin wuxuu soo jeedin karaa sida uu sax u arko marka koowaad waa qodobka waqtiga aad baan uga mahadnaqayaa xildhibaanka waxaan u malaynayaa wixii ugu badnaay aan ka hadlay intaan halka soo fadhiistay bay ahayd waxaan xusuusinayaa dhammaanteen in xeer hoosaadka ay ku qoran tahay haddii aad akhrideen waxaan filayaa raggu inaanu akhrin xeer hoosaadka walba waa jiray tallaabooyinka iyo cuquubaadka ka dhalanaya xildhibaanada waqtigooda uga faa'iideyn waayo golaha marka taana waxay u baahan tahay inaynu deefahno oo golaha aynu u dayno xoroosaadka oo waxaynu ku shaqayn doonaynu rabno inaynu dhaqan gelino oo waqtigiisii siino xoroosaadka insha Allah mudanaya arinta waqtiga waan sheegay waynu isla qaadanay waxay noqonaysaa waynu ka hadli doonaa laakiin yaa ugu noqon arinta waqtiga wixii kale cusub barhad xoroosaadkan aynu ku shaqayn doonaa ma ayidayo inaan wax laga bedelin 5 sano ee soo socota xildhibaanada ku darayay maadaama uu xoroosaadkan midaan 5 sano isku xukumi doono waxa ku jirta qodobo haddii aynu u baahno inaynu kaabis iyo wax ka bedel ku sameeyno iyo habraaciisiba uu ku jiraa sidoo kii hore dhigayay guddida joogtada ah ayaa waajibaad u ahayd inay kaabis iyo wax ka bedel sameeyso waxaan ku soo darnay xildhibaanada goloweynaha haddii ay golaha joogtadii u muuqan weyday ama guddida joogtada u muuqan weyday iyaguna inay iskood ay dalban karaan marka waxaan qabaa inaynaan saddexdaa cisho aynu ku dayno laakiin si aynaan ka dhigin dood furan maadaama waxaynu sugayaa ka ballaaran yahay xeroosaadkeenna maadaama aynu dalku in badan gaab tirsanayay golahan aad iyo aad baanaan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin afkaartiina wala salaamantiin marka hore waxaan soo jeedin lahaa maadaama uu go'aan cusub yahay maalintii horena waa la sheegay inductionskii aba seminaaradii loogu talagalay golaha suu shaqadiisa si muxuu ahaa fiican u guto bal seminaarada inaynu soo horreysiino markaa waqtiga ugu horeeya idinku macquulsan hawsha aad noo soo horreysiisaan qodobka labaad guddoomiye golahan waxaa laga filayaa wax aad uga duwan golayaashii hore golaheena waxaa laga filayaa inuu noqdo golo ku dhac badan leh waxaan soo jeedin lahaa kan waynu ansixinaa jibdahe kuwayowga dambe inaynu curin badan oo xaggeena aynu ku soo darsanno oo aynu tusno dadweynaha inaynu inagu sugaynuun fulinta aynu hawsheena wadanno qodobkii ugu dambeeya runtii dee intii ay shaqaynayeen guddida 15kii waa 10 cisho 10kaa cisho annagu waa soo akhriyay xeroosaadka marka mudanayaasha waxaan leeyahay maadaama 10 cisho aynu soo akhriyeynay wax badan oo inagu cusub oo kii hore ay ma jiro kan intay ku soo dareenna waynu ku soo diyaarin karnaa
caawa anu waxaan qabaa inaynu soo akhrino caawa berri toolana aynu bilaabano doodaheena shaqada inoo taalla ayaa aad u badan aynu akhrino gelinkeena dambe aynu habeenkii akhrino shaqadeena kuma koobno 4 saacadood matane aynu akhrino waqti badan oo maasatiin wax badan oo cusub hadda ma bahayo raggu waxaad moodaa hal qodob baynu ka hadlaynaa oo ah xeeroosaadka in berri la ansixiyo iyo in muddo la siiyo runtii anu marka hore waxaan farta u taagayay waxay ahayd maadaama oo aynu dirannay rag aynu ku kalsoonnaho odayaal ahaa inana aynu buugga intaa haysanay oo akhriyaynay waxaan islahaa kulley aan tiraahid war aynu iska ansixino berrito laakiin hadda waxaad moodaa fakarkii inuu kaygii ka batay waana ku ixtiraamaya dadka waayo dadku hadda wuxuu u badan yahay in chance la siiyo marka waxaan odhan lahaa sidaa dadka fakarkaa dadka un baan aniguna qaatay insha allahu ilaa sabtidana ha noqotay in chance la siiyo buugga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu in lagu soo daro aan doonaynin sidii soo jeedinta xildhibaanadii shalay jeediyay ay sheegeen xaaladda dalka in la iska warayso waayo kala fadhigan wuxuu soconayaa 3 bilood gobollada qaarkood waxaa ka taagan dhibaatooyin 3 bilood sugi karay sida gobolka awdal oo rabnay riboodkooga inaan golaha halkan ka siinin golo cusub baynu ahayn in ajandaha lagu soo daraa muhiim bay u ahayd sidii mooshi shalay ku soo jeediyeen xildhibaanadu in bal gobol walba wixii ka taagan la iska xog waraystay laakiin imika dad baad geliseen dee ajandihii sidaas ku ansaxay 3 bilood xaaladahan sugi karayna way jiraan la socda tan kalena waxaan la qabaa taladan la rugin waa lagu rafaadaaye in akhriska muddada xildhibaanada ay sheegeen la siiyo kabacdina nin walba si fiican u soo akhriyo kana soo bogto dabeetana dooda la geliyo sidana lagu ansixiyo waana ku mahadsantihiin gudoomiyuhu cabdirasaaq khaliif maalintii doorashada shirgudoonka wax uu ku celceliyey kelmad curfi bay ahayd curfi baa ogolayaashii hore curfi u ahayd curfi micnaheedu wuxuu ila muuqday dhaqan soo jiray baa qaabkani ahaa haddii ay inoo noqoto duubku ansixiya dedejiya saw xeerarkii ka muhiimsanaa ee ina hor iman doono mustaqbalka dhaqankaas qaadan mayno oo duuduub guddi baa loo saaray 15 mudane akhriyey waa la soo koobay waa la highlight gareeyey maalin baan haysanaan gacanta u taagno soo dhaqantaasi naga noqon mayso haddii aynu qaabka maanta ku garan xeer hoosaadka arrinkani aniga waxa uu ila muuqdaa in aynu marka laga yimaado xeer hoosaadkana inagu san argsay muuqata qodobna siinayaan in hadhow soo jeedin karno wax ka bedel oo inaga u naqsaamaynayo inaga u naqseeya arrinkan waxa iga muhiimsan aniga curfigaas iyo dhaqankaas ay abuurayso haddii qaabkaas aan ansixino qaabka degdega ah ee duuduubka ansixiyada waxaan soo jeedinayaa inaan dhaqan cusub oo wanaagsan u bilowno golahan dhaqan ah in laga bogto la darso qodob loo dul istaago aan la dub iman mas'uuliyadiina loo doortay aynu ka soo baxno waana hadhow odhan xeer runtii in badan tambiihiyey qofku inuu wax soo kordhinayo haddii intii uu lagu noqonayo waa dhib badan bay nagu noqonaysaa waxa laga hadlayo hadda waa waqtigii mid labaadna waa tambiihinaya xeer hoosaad baynu ka hadlaynaa in xeer hoosaadka habdhaqankan golaha laga soo akhristo anshaxa golaha iyo sida la isugu halqabsanayo iyo erayada la isticmaalayana qofka xildhibaanka ah inuu xogogaal u noqdo isagoo doonaya inuu wax saxo hagaajiyo inaan anshaxa golaha laga gudbin aad baan idinku waanoon runtii aad u ixtiraamaya xildhibaanada laakiin inay xogogaal u noqdaan xeer hoosaadka ay ku doodayaan ee hor yaalla inay rag xogogaal u noqdaan qof walbana uu habdhaqanka golaha ixtiraamo shugul maartay haddii la ku dhaqmo insha Allah xildhibaan Abubakar waxa muuqata kullay inay wax ka bedel sameeyeen ama ay wax ku soo dareen sidaa darteed hadda problemku wuxuu yahay meesha ka muuqataay inaanay muuqan wixii ay soo jeediyeen ay ku soo dareen iyo wixii ay saxeen anoo markaa ka duulaya oo maxay waafajinaya aad moodo in la yar dhaafaayo
waxaan jeclaan lahaa maadaama halkan aanay ku caddayn iyadoo ay dhacday error type aanay ku soo talagelin waxaan soo jeedin lahaa bal horta in ay hadda isla imikadanba na tusaan wixii ay ku soo kordhiyeen iyo wixii ay ka saxeenba si annaga naftarkayga markaa noogu fududaato wakhtigaasi waxa kale oon ayidsanahay in muddadaasi ka hadhay sabtida loo ogolaado mudanayaashu inay soo akhriyaan wixii kale hadda si ay noo caddaato wixii ay soo saxeen iyo wixii ay soo kordhiyeen mudane guddoomiye ama golaweynahaba 15 xubnood baa la saaray waqti bay soo geliyeen mudday soo haysteen muddaday soo haysteen iyagu waa shaqaynayeen laakiin annagu waanu iska fadhinay xaqna dee waa nalagu leeyahay in aanu waqtigaa ilaalino oo aanu soo gelino runtii waa u mahadnaqayaa waqti fiican bay geliyeen waxaa golayaashu ama mudanayaashu waxay u bateen in akhti la soo geliyo muddana la siiyo mudane guddoomiye waxaad maalin hore sheegtay inkastoo ay xeeroosaadka mala ku qorantaan la ansixin in arbacada iyo khamiista golaha uu fasax ahaan doono waxaa imikana halkan badi golayaashu ku dhawaajiyeen in akhris laakiin dood waqti la qabanayo aan la sheegin waxaan soo jeedin lahaa in labadaa cishe khamiistii iyo arbacadaba goluhu maadaamuu xeeroosaadku yahay ajandaha halka koobaad kaga jiro in akhriska labadaa cisho loo qaybiyo waxaan leeyahay doodiisa loo qaybiyo isla mar ahaantaa sabtidana dee ansixin laga dhigo laakiin marka sabtida la yimaado aan la odhan uun dee haddana aan dood kale iman aynu ka doodno oo waqti kaloo dheeraada oo aanu haddana iman laakiin labadaa cisho dee laysku dhex wado maadaama goluhu waxaan soo jeedin lahaa inaynu fasax gelin waxaan filayaa in ka badan 20 xildhibaan ayaa ka hadlay qodobka ah waqti hal la siiyo maxaan ku yahay xeeroosaadka iyo maanta hal la siiyo kullay waxaan filayaa oo ma aanu aaminsanay xeeroosaadku wuxuu inoo yahay muhiim inaan waqti siino oo si fiican uga soo baaraandegno waa firkaanu aan aaminsanahay laakiin intii aan qodobka ku noqon lahayn ama go'aan qaado markaad qiimayso xildhibaanada in waqti hal la siiyo maanta ha laga dhigo ama cod geliyo one time hay naga noqdo kaliya intaas aan soo jeedin laakiin inaan ku noqonaynaan waqti hal la siiyo maanta hal la siiyo waqti hal la siiyo waqtiga way naga luminaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inagoo tixgelinayna xildhibaanada ra'yigooda intii si badnayd maalinta berri iyo saa dambe labadaba la soo akhriyo oo akhriskaas ha yimaado laakiin waxaynu ogaataan maalinta sabtida loo kala kici maayo waqtiga inaga hore u cunay waxaynu hadda ka hadlaynaa iminka maalan anigu aad u ixtiraamay waqtitii aadna ugu mahadnaqaya xildhibaan xarsi oo kale wuxuu ka hadlayay tababaradii waqtigii aynu qaadan lahayn waxay u xanibayeen xeeroosaadka waxaa jira xeerar kale oo laynaga sugayo guddiyeyno inuu diro waxay u xanibayeen xeeroosaadka innagiina waxaad moodaa xoogaa hal qodob oo quri inuu oo ah waqti siino un inay hawshii naga qabatay xeeroosaadkana waa waxay ahayd inaynu muddo badan maanta nin walba inuu dusha ka xabsanaado bay ahayd xeeroosaadka wixii hore ay jiray runtii marka tababaradii hadday noqon lahayd curin xeerar hadday noqon lahayd wax waliba waxay naga xanimayeen xeeroosaadka maalinta sabtida waxaynu ku talagelaynaa iyadoo cuqubooyinka ka dhalanaya maqnaanshaha iyo saacaduhuna ay ku qorayeen xeeroosaadka wixii aad ku soo daraysaan ee kalena oo qofku markuu isagu isxukumaba xukunku ugu adkaan doono haddii la yidhme qof waliba notiskiisa ha soo qaato maalintaa waxa aynu ku gurayna ku daraynaynu waxayn doonnaa maalinta sabtigaa xeeroosaadku wuu inaga dhammaanaya waa go'aan xeeroosaadku maalinta sabtida wuu inaga dhammaanaya labada maalmood ha la soo akriyo contributionska la soo geliyo qolada xogayntana ha laga qaato dhammaan ha laga qaato lifaaqa guddidu wixii ay ku dareen iyo wixii ay ku soo kordhiyeen haddeer ha loo daabaco dhammaan mudanayaashu ha qaateen si ay u ogaadaan uu ku guda jiraa xeerka uu ku guda jiraa marka maadaama ay beri fasax yihiin oo maqan yihiin ha lagu guda galo midda labaad waxaan baraarujinaya baynu odhan marna waa fasax khamiista iyo arbacada iyo khamiista markaynu guddiyada intaynu magacaabayno waynu wada shaqaynaynaa laakiin markay guddigu timaado waa maalmaha guddigu ku shaqaynayaan xafiisyadooda ee xeerarkii iyo hawlihii loo dhibay ay qabanayaan arbacada iyo khamiistu afarta maalmood kalena waa maalmaha goloweynaha marka marna inagama soo bixiyaan aanay fahamxumo dhicin
in goluhu fasxay 6 maalmoodba goluhu uu shaqaynaya maamulkuna uu shaqaynayaa xafiisyadu ku shaqaynaya 2 maalmood guddiyaduna way shaqaynayaan oo xafiisyada ku shaqaynayaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa shirkuna waa inoo xiran yahay aad baad mahadsantihiin